war-saxaafeed oo xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ka soo saaray heshiiska sharci darrada ah ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ay la gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka ayay ku sheegtay inuu yahay mid muujinaya in lagu xadgudbay shuruucda dalka. xafiiska ayaa wasaaradda iyo hay'adaha ay khusayso ogeysiisay inuu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan, isagoo gal dacwadeed u gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka si talaabo sharci waafaqsan loogu qaado ciddii ku lug lahayd. sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kula taliyay in si degdeg ah shaqada loogu joojiyo dhammaan shakhsiyaadkii qaybta ka lahaa saxiixa heshiiskaas. wasiirka wasaaradda batroolka ayaa bartiisa Twitter ku shaaciyay inuu saxiixay heshiis ku aadan bixinta 7 xirmood oo shidaalka Soomaaliya, isagoo xusay inuu la ogaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo ay fila Soomaaliya iska fogeysay hadalka wasiirka. sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inaysan waxba kala soconin heshiiska uu saxiixay wasiirka batroolka iyo macdanta oo dhaxda ka galayay jahwareer uusan filaynin. xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu dib eegis ugu soo baxday in si toos ah loo balmaray dastuurka kumeel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sharciga iibka qaranka iyo wax ka beddelkiisa, sharciga batroolka iyo habraacyada dhaqangalka ee dalka, kuwaas loo asteeyay in lagu maamulo gelidda heshiisyada caalamiga ah. talaabadaas ayaa khatar mug leh ku leh kheyraadka ummadda Soomaaliyeed iyo dhowritaanka dhigaalka hantiyeed ee jiilka mustaqbalka Soomaaliya.